2017 ayaa la bilaabay dhismaha masjidkan oo ka kooban 3 dabaq iyo barxad weyn, waxaana qaab dhismeedka masjidkan uu yahay mid u eg masaajida waaweyn ee ka dhisan dalka Turkiga, waxaana si gaar ah u shabahaa masjidka uu madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ka dhisay suuqa ugu weyn caasimadda wadanka Turkiga ee magaalada Ankara. dhismaha masjidkan oo socday 6 sano waxaa ku baxay dhismihiisa qarash gaaraya 12 milyan oo doolarka Mareykanka. masjidka Cali Jimcaale oo laga dhisay inta u dhaxaysa isgoyska kiiloomitir 4 iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay qaybo loogu talagalay waxbarashada oo leh hooy, maqaaxi, supermarket iyo baakin weyn oo baabuurta jameecada loogu talagalay. masjidkan ayaa waxaa aabihiis Cali Jimcaale u waqfay wiilkiisa Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ah milkiilaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud, waxaana halkii mar ku tukan karaa 5,500 oo qof halkii mar. waxaa dhistay masjidkan shirkadda dhismaha Buruuj. haddaba injineerka dhisay masjidkan, injineer Maxamed Ibraahim Xasan, ayaa sharaxaad ka bixinaya dhismaha masjidkan iyo qaybaha uu ka kooban yahay. masaajidkan oo masaajid weyn ah oona ka kooban 3 dabaq oo lagu tukado. qayb ka mid ana dumarka ay ku tukadaan. qaybta hoose ee basementigana waa inta tan afaraad oo loogu talagalay machad diini ah. machadkaas oo leh qaaco weyn oo wax lagu barto iyo galaasyo oo ardada xufaadka qur-aanka ah lagu barayo. masaajidka intaasuu ka kooban yahay iyo musqulo haragga oo labada dhinac ah iyo musqulaha dumarka oo dhinac leh oo ay ka soo galaan. masaajidka habka uu u dhisan yahay waa hab architect cuthmaani ah oo sida ay u dhisan yihiin masaajidada Turkida ayuu u dhisan yahay. gudahiisa iyo dibaddiisana waa marble, dhagax la yiraahdo aad qaali u ah. gudaha iyo dibaddaba uu samaysan yahay. wuxuuna wataa shakl islaami ah oo thuraathi ah, cusmaaniye ah, oo leh qubooyin isdul saaran oo 3 qubo ka kooban. qubada weyn iyo qubooyinkii kale 4 qubo ah ee kusoo fariisanayso iyo qubooyin yar yar oo ku wareega oo loogu talagalay quruxda masaajidka. intaas waxaa dheer wuxuu leeyahay 2 manaarad oo aad u dhaadheer oo 75 mitir ah ayuu leeyahay, labada dhinac ku leeyahay. manaaradahaasayto ah manaaradihii masaajidadii cuthmaaniga la samayn jiray oo calaamadda u ahaa. marka masaajidka intaasayto ayuu ka kooban yahay masaajid ahaan. masaajidka wuxuu leeyahay murfaqaad badan oo asaga la socda. waxaa ka mid ah saaxada weyn ee lagu tukado bannaanka ah oo masaajidka uu leeyahay. masaajidka wuxuu kaluu leeyahay baarkin underground oo dhulka baabuurta hoostiida la dhigto iyo qayb yaroo dusha ah oo qaadaysa ilaa 150 gaari qaadaysa ayuu leeyahay. masaajidka wuxuu kaluu leeyahay guriga imaamka oo ka kooban 4 qol iyo fadhi, iyo guriga muadinka oo ka kooban 3 qol iyo fadhi, iyo xafiis maamulka masaajidka uu leeyahay oo ka kooban 3 qol. intaas waxaa dheer inuu leeyahay supermarket oo dadka jimcaha kusoo tukada iyo dadka xaafadda degan ay ka adeegan karaan, iyo restaurant wax laga cuno inuu leeyahay, iyo meel cafeteria ah. masjidka Cali Jimcaale ayaa ah masjid loo dhisay qaab casri ah oo u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin jameecada masjidka. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV, Muqdisho.